Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikachi. Maanta waxaan qaadanaynaa wax loo yaqaano WH questions, su'aalaha ay ku jiraan WH ayaan baranaynaa. Marka ugu horreysa waxaan rabnaa inaan barano waa maxay WH. Okay, sidoo kale xaggee bay ka galaan weedha ay su'aasha ka samaynayaan. Okay, WH questions are questions that contain WH regardless of where they appear in the sentence. WH questions badiya su'aalaha WH ay ku jiraan waa su'aalaha are questions waa su'aalaha that kuwaasoo contain ay ku jiraan WH. WH baa ku jira regardless of where, ayadoo aan la tixgelinin halka they appear ay ka muuqdaan ama ay kaga jiraan in the sentence weedha. Halka ay weedha kaga jiraan tixgelin lama siinayo, laakiinse waxa shardi ah inay su'aal samaynayaan sidoo kalena waxa weeye ay su'aasha ku jiraan. Okay, tusaale ahaan oo kale who, for example, waa tusaale ahaan oo kale who, yaa weeye, who, yaa, what, when, why, how, which, etc. So kuwaanoo dhan waxaa ogaanaysaa ama ku xaqiiqsanaysaa in ay ka kooban yihiin WH. Muhiimna ma ahan qaabka isku raacaan. Tusaale ahaan oo kale who oo ugu horeysa WH waa israacan, labadooda waa isku xigaan, laakiinse how haddaa fiirisay kan ka hooseysa HT iyo WD waxay ku kala jiraan owda labadeeda dhinac. Sidaa daraadeed waa saan soo sheegnay WH questions are questions that contain a WH regardless of where they appear in the sentence. WH questions waa su'aalaha ka kooban WH ama ay ku jiraan WH ayadoo la tixgelin halka ay kaga jiraan word. Okay, so WH word baa halkan ku qoran, sidoo kale halkan function ama shaqadiisa ayaa ku qoran, halkaana sentence wordy ayagoo ku jira ayaa ku qoran. So ka koowaad waxaan ka dhignay what waxaa loo isticmaalaa asking for information about something, in xog lagu wareysto oo weliba wax kale looga wareysto. Tusaale ahaan oo kale what's your name, magaca. Waxaa raadinaysaa waa xog oo ah magac, waxa aadna ka raadinaysaa qofka. Marka qofka ama asaga naftiisa magaciisa ha kuu sheega ama magac kale ha kuu sheega, you're asking for information. Waxaa raadinaysaa xog about something or somebody, ama qof baa ka raadinaysaa ama waxa weeye wuxuun baa ka raadinaysaa. What is this baa dhihi kadhaa halkan oo kale waxaa ku qoran kadhaa what is this, waa maxay kani, kuma qorna halkan laakiinse yacni markaad shay ka raadinaysa tusaale ahaan oo kale. Okay, what tan labaad asking for repetition or confirmation, waxa aad weydiisanaysaa qofka ama ka codsanaysaa inuu ku soo celiyo ama waxa weeye waxbaad xaqiijinaysaa. Okay, labadaasba way noqon kadhaa. tusaale ahaan oo kale what baa tiri, oh what, I didn't hear you, can you please repeat what you have just said. waxaa dhahaysaa what, maxaa, yacni qof baa wax yiri wixii ama maadan maqal ama waad maqashay waad u qaadan weyda, markaasaa rabta inay xaqiijisid. marka labadaasa loo isticmaalaa. marka sentence halkan wax walba kuma soo qori karno, waxaan kusoo qorna keliya qof aadan maqal qaabka ugu isticmaali lahayd. marka sentence ka fiiri what buu yiri, what, maxay, I didn't hear you, kuma maqal, can you please, fadlan, repeat, ma ku soo celin kadhaa, fadlan ma ku soo celin kadhaa what you have just said, wixii aa hadeer tiri. Okay, marka waxaan hadda halkan kusoo isticmaalnay ayadoo loo isticmaalayo qof wuxuu uu ku yiri laakiinse aadan maqal, laakiinse ogow what waxa uu isticmaali kadhaa sidoo kale confirmation, inaa qofka war uu yiri laakiinse si dhaba u maqashay balse uu qalbigaaga qaadan waayay ama maskaxdaada qaadan weyday, si uun aad u qaadan weydido inaa ku socodso maxaa tiri oo kale weeye, maxaa tiri oo kale weeye. marka qofka marka maxaa tiri ku tiraahdo marna waxaa laga yaabaa inaad weydiinaysid wuxuu ku yiri oo aadan maqal inuu kugu soo celiyo, marna waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay waxa uu ku yiri maxaa tiri, intaasaa u eegtay oo qoraad ka eegtid oo gebigaagaba qof kale iska dhigtid. sababta waa isbedesho moogtahay, waa iska kafta. Okay, ereyga saddexaad waxa weeye what for.
what iyo for waa isla socdaan sentence-ka ayay ku wada jiraan marka waxaa weydiinaysaa asking for a reason sabab ayaa weydiinaysaa tusaale ahaan oo kale what did you do that for maxaa taas u samaysay what did you do that for maxaa taa u samaysay oo kale way for marka sabab baa weydiinaysaa ha u samaysay okay when asking about time markii aa ka weydiinaysa waqti baa rabtaa qof inaa wax ka weydiisay tusaale ahaan oo kale when marka waa goormo when was the World War II happen goormo ayuu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka World War II waa dagaalkii labaad ee dunida world waa caalami ama adduunka warna waa dagaal tuna waa labo tugan waxa weeye waa qaab kale oo waxa weeye guriga loo dhigo okay sidoo kale waxa weydiin karaa when did you come home goorma guriga timid qof aadan guriga ku ogeyn oo guriga ka maqnaa baa weydiinaysaa when did you come home goorma guriga timid okay ereyga ku xiga waa where asking in or at what place or position somebody or something is halka wuxuun shay ah ama qof uu joogo ama waxa weeye levelkiisa ama heerkiisa uu yahay barta inaa baa lagu weydiiyaa where so where is he halkee buu jiraa he is at school waxa uu joogaa iskuulka where is your phone may telefoonkaaga it's in my bag wuxuu ku jiraa boorsadayda so bag waa boorso schoolna waa taqaanaan where is he xagee buu jiraa where is he xagee buu jiraa he is at school iskuulka ayuu jiraa where is your phone may telefoonkaaga it's in my bag it's in my hand baa dhihi kadhaa gacantayda ku jira it's in my pocket baa dhihi kadhaa jeebkaygu ku jira okay it's there baa dhihi kadhaa halkaasu yaala it's here waa kan baa dhihi kadhaa waxaad macna alright okay weli waxaa sii socda WH questions okay halkan waxaa ku qoran WH wordkii halkana functionkiiba ama shaqadiiba ku qoran halkana waa sentence-ka iyagoo weera ku jira kuwan inta badan kuwan dhowr geliyay si aa wax badan uga faa'iidaan so which baa ku xiga ereyga ku xiga waa which oo ah asking about choice laba waxyaabood ama wax ka badan baa rabtaa inaad qof kala dooransiisid marka wuxuu isticmaalayaa WH wordka marka isticmaalsid waxaa isticmaalaysaa which so which book is your favorite which book is your favorite keeba buugeeba doqaaga dhowr book waxa laga yaabaa laba book inaad gacanta ku hayso markaas aad I have these two books labadan book ayaan hayaa which one is your favorite keeba waxa weeye doqaaga marka which book is your favorite buugeeba doqaaga ama waxa weeye aad ka heshay okay who waxa weeye asking what or which person or people or subject waxa weydiinaysaa qofkeebaa weydiinaysaa who waa qofkee ama kuma yaa weeye baa weydiinaysaa who are you yaa tahay who are they yaa yihiin who was talking to you yaa kula hadlayay who was that boy yaa weeye wiilkaas who is this girl yaa weeye gabadhan who are you yaa tahay waxaan rabaa inaad ka jawaabto su-aashan runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiima qofku inuu yaqaano waa dadka waxyaalaha ugu badan ee markii interviewga ama waxa weeye shaqo intay codsadaan ama waxa weeye waxay doonaanba ha sameeyaan ha u codsadaan shaqadaas waxay doontaa ku saabsanaadeen inta badan waa su-aasha la weydiiyo who are you ama waxa weeye tell us about yourself naftaada nooga sheekee marka who are you waa inaad is aqoonsataa qofku waa potentially waxa uu waxa weeye ku wanaagsan yahay qofka uu yahay cidduu yahay marka la yidhaahdo ma aha magacaaga iyo qabiilkaaga iyo halkaas aadi who are you marka la yiraahdo war adiga yani qofkan shakhsiyan yaa tahay adoon meel kale naftaada u dhaafin yaad naftaada ku qeexi lahayd oo ku tilmaami lahayd su-aashaas waa muhiim inaad ka jawaabtid oo naftaada uga jawaabtidna waa muhiim oo aad aqoonsatid sababtoo ah waxay ku anfacaysaa inaad aqoonsatid halka aad ku fiican tahay iyo waxtarka iyo faa'iidada aad nolosha nafsad ahaantaada ah iyo tan dadka kale aad dunida aad u leedahay so who are they yihiin dad halkaa marayo kala aragtin kaasaatir who are they yihiin kuwan okay su-aasha tan ku xigta who was talking to you yaa kula hadlayay haddaa rabta inaad dhahdo yaa ila hadlayay who was talking to me yaa ila hadlay qof baa telefoon kula hadlaysaa markaasaa qof kalaa ka ag hadlay oo yidhi hebelow ku yidhi marka waxaa dhahaysaa who was talking to me yaa ila hadlayay who is that person yaa weeye qofkaas macnaha who is with you yaa kula joog waxyaalo noocaas oo kala dhihi kara who was that boy
baa ku xiga wiilka yaa weeye wiil baa macnaha aragta halkaas ama waxa weeye sidoo kale who is this girl yaa weeye gabadhan who is that boy wiilku wuxuu kaaga muuqdaa meesha halkaas xoogaa buu kaa fogaya laakiinse gabadhu waa ku ag joogtaa qofaa isku timaadeen oo kale oo gabar yar wataba aragtan kasaa tiri who is this girl yaa weeye gabadhan she is my niece bay dhihi kadhaa macnaha waa gabara habaryar u ahay ama eedo u ahay niece gabadha loo isticmaalo okay whom waxaa laga wadaa asking what or which person ama people marka who waxaan iri waxay gashaa subjectiga ama waa waxa falka sameynaya who are you yaa weeye macnaha cidda falka sameynaysa oo hadda la hadlaya waa adiga who are they dadka falka sameynaya oo waxa weeye aan hadda rabo inaan ogaado cidda ay yaa weeye waa kuwaas who was talking to you yeah qofka aan la hadlayo waxa weeye waa adiga macnaha marka who marka aragtid waxay gashaa subjectiga ama ayada samaysa ficilka ama falka samaysa actionka ayada samaysa laakiinse whom ayada ayaa actionka ama falka lagu sameeya marka whom did she see yay aragtay cidii la arkay yaa weeye waxaa la arkay qof macnaha whom baa la arkay wuxuu yahay ma naqan gabar miya ma wiilba ma naqan okay whom was she shouting at yay ku qaylinaysa cidii lagu qaylinaya waaye whom weeye whom was she shouting at yay ku qaylinaysa the class was disrupted halkaan ka ogaan kadhaa marka tusaalahan oo kale tusaalahan dheer baan soo raaciyay sababtoo inta badan whom waxaa la rabaa inay noqoto falgudoomi ama waxa weeye receiver of the action falgudoomi ama wixii falku ama ficilku uu ku dhacay sidaa daraadeed waxay u baahanaysaa in sentenceka ama weedhu ay dheeraato si subjectigina loo tuso waxa weeye objectigina waxa weeye subjectiga loola xiriiriyo bal halkaa ka fiiri tusaalahan kale iyada ku wareerina sababtoo grammarkan ku baran doonaa qaabka ay yihiin iyo waxa qaabka ay u shaqeeyaan iyo wax weeye sida ay ku samaysmaan iyo saa u isticmaal lahaydba okay marka halkan laakiin waxaan usoo qaadanay inay kusii fududaato inaad baratid qaababka mataqaanaa WH questions loo isticmaalo sababta waa wax maalinle la isticmaalo okay so the class waxaa la yidhi fasalku ama classku was disrupted waa la carqaladeeyey yaa carqaladeeyey classka waa la carqaladeeyey by the man baa carqaladeeyey ninka carqaladeeyey hum ninkaasoo ninka aan ka hadlaya waa ninkan falka geystay carqaladeynta classkiga geystay ninkaana geystay marka ninkaa falka geystay baan weli ka hadlayaa waxaan rabaa inaan mataqaanaa yacni ninkii aan warka ku celiyo intaan dhihi lahaa the man ninkaasoo many students consider to be rude intaan dhihi lahaa hum baan leeyahay ninkaasoo many students consider to be rude ardada in badan oo ka mida many students arda badan consider ay u tixgeliyaan ama waxa weeye ay ku qeexaan to be rude inuu yahay mid akhlaaq laawa idabdarane okay marka halkaana ka fahamta marka waa wixii falka sameeyey waa kan sidaas oo kalena loogu refer gariyay laakiinse kan ama whodan uma baahan doontid sentence saas u dheer oo kale inaa waxa weeye aad ka hormarisid who are you baba hadiiba iska dhihi kadha alright so who's asking about ownership lahaansha ayaa wax ka weydiinaysaa whose are those pencils yaa iskale qalimaantaas whose are those pencils yaa iskale qalimaantaas whose okay why waxaa lagu weydiiyay asking for reason sabab ayaa weydiinaysaa why do you say that maxaa saa u tiri why do you say that maxaa saa u tiri why do you think so maxaa saa ugu fikiraysaa maxaa saa u tiri iyo maxaa saa يعني waxa weydiinaysaa sababta uu qofku waxaas u sameeyay why did you do that to me hatta ani igu sameysay why did you do that to the girl maxaa gabadha saa ugu sameysay taa ugu sameysay why did you do this to us maxaa tan ugu sameysay yani qofkii waxa weydiinaysaa falkan uu sameeyay wax yani xun waxa uu sameeyay ama wuxuu waxay doonaan bahaaday waxa laga yaabaa wax qofku uu sameeyay laakiinse aadan cilmi ama aqoon u lahayn aadna la yaabtay markii koowaad baa rabtaa inuu kaa qanciyo haddii uusan kaa qancin karina waxaa rabtaa inaad weydiiso adeer inuu ka laabto marka koowaad su-aasha aad weydiinayso waxa weeye maxaa taa u samaysay okay marka why do you say that maxaa saa u tiri hadduu kaa qanciyo oo wuxuu saa u yiri kuu sheega wax weliba caqliga geli kara waxa laga yaabaa inaad ku qaadatay laakiin haddii wax caqliga geli karin kuu keeno waa ku diidaysaa macnaha saasoo kalaa laga rabaa maxaa saa u samaysay why do you think so maxaa saa ugu fikiraysaa
daawadayaal waxaan nimid gabagabadii casharkeena. Thank you so much. aad baa u mahadsantihiin. Have a nice day. maalin wanaagsan ayaan idin rajeynayaa. maalin wanaagsan baa ku rajeynaya. Okay, good luck. sidoo kale mustaqbal wanaagsan iyo nasiib wacan ayaan ku rajeynayaa. halka aad ka daawanayso waa Hikaaji. fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar. haddii aad hore noola joogtidna like ta saar si casharkani dad badan u gaaro oo dad badan oo Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan. annagana dhiirigelin bay noo tahay oo casharo badan inaan yani maalin walba kusoo upload garayno youtube-ka ayay nagu waxa weeye sababasa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. nabad iyo nooli kulanti.